habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraar idin socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe waxa sii kordhaya walwalka uu caalamku ka qabo xaaladda Suudaan halkaas oo dibadbaxayaasha ay ugu baaqayaan madaxweyne al-Bashir inuu xukunka ka dego UK Mareykanka iyo Norway ayaa ku baaqay in la aqbalo codsiga dibadbaxayaasha maalintii afraad oo xiriir ah ayaa dad badan isku arursadeen taliska ciidamada ee caasimada Khartoum hortiisa askarta qaar ayaa amar diida sameeyay oo la saftay banaanbaxayaasha cabdiraxmaan biraan xaaji daahir ayaa inoo haya waa markii ay ciidamada ammaanku isku dayeen inay kala didiyaan dadkii halkaasi isugu soo bannaan baxay laakiinse dadka bannaanbaxan soo abaabulay ayaa waxay sheegayaan inay jirto dhimasho iyadoo halkaasina dadka dhintay ay ka mid yihiin askari halkan waxaa ka muuqda in askarta qaar ay ku jawaabeen rasaas kadib markii ay dadku u soo yaaceen xeradooda oo ay gabbood ka dhigteen laakiinse taliyaha guud ee ciidamada Suudaan ayaa waxa isagu aan waxba ka soo qaadin inay jiraan khilaafaad u dhaxeeya militariga iyo ciidamada sirdoonka waxaana uu sheegay in ciidamadu ay ka hortagi doonaan kuwa ka hor yimaada buu yidhi amniga qaranka laakiin muuqaaladaynu halkan ka arkayna waxay noo sheegayaan sheeko taasi ka duwan xubno ka tirsan militariga oo aan iyagu darajo sare lahayn ayaa iyagu mowqifkooda caddeeyey tanu waa fariinta aan u dirayo walaalahay kuwa ku jira ciidamada dadkan bannaanbaxa samaynaya waa walaaladiinayana dhammaantiinba waxaan idinka codsanayaa inaa isbarbar taagtaan dadka Suudaan kuwan waxaan dibadbaxyadii ugu waaweynaa dhaca intii uu xukunka hayay madaxweyne al-Bashir oo imika 30 sano baarka ka jaray waxaanay wacad ku mareen inay halkan fadhiyi doonaan oo ah meel ku xigta uun xarunta madaxtooyada iyagoo sheegay inay halkaa fadhiyayaan inta madaxweynuhu xukunka ka degayo